السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك لي عشر كي علم باريستا. عشر كان وحنا وهذا الدرنا وحنا يقانو درشنا موضوعا. درشنا الموضوع هو متكملة وحياة أمي بسنة أرضية مرك وديارنا يبوك خليج جميتها. أرضي بدل وحاي سويديسا حاجين كبلابا موضوعا وحكمرة وحنا قنكرة. الموضوع اللي دورته معها متأكد وفور أرضية مرك وجوه رئيس ودلابا علم باريستا. أساس أودي العشر كانوا يحلوا على إنه مهم ياهي أرضية جامعة ديجانيس قارهان قوة لجنة بين أقران بوق خارج جميتها. إن الموضوع قرطة أو موضوع عدورته وحياة بدن عياجره وأرضية سامية كله. معهم وكلية قوان كي ماسك سكلي يحب مركز قار. مركز قار كل واحد سامين كلو سياسة الجامعة. الجامعة يلاقيها وإن لها سياسة إن الموضوع قاعد وحلا قطره. ولوجي الأرضية وحتى حقوق ليس وكلية موضوع إكس أو موضوع واحد ساس أودي الأرضية وصل ضوء أما ربيتان كيس وصل لحين إنه قدرة الموضوع. واحد كلام كلام مركز قارئ موضوع أي كتم هذا شركات أما شخصيات مالجلين تسميه وأرضي وكيل هذا موضوع عسى حقوق ليس ساس أودي حقوق خزمية مركز أرضي موضوع عزوته هذه مركز بعض شركات أما شخصي أي مالجليان علم باريستا أرضية مراها قوانك وكدور لها موضوع. سيدو كلا waxaa dhici karto marka qaarkood in dawladda ay tiraahdo ardayga ay siiso scholarship kaasna looga dhigo shuruud in research ama cilmi baarista uu sameynayo uu ku sameeyo mowduuc gaar ah oo ay dawladda ama hay-adaha dawladda midkood ay doonayaan in kaga faa'iidaystaan waxqabadka dalka saas aawadeed qodobadaas aan soo sheegay oo ah in siyaasadda jaamacadda ay tahay in mowduuc gaar wax laga qoro in shakhsiyaad ama shirkado ay maalgeliyaan cilmi baaristas ama dawladda ay siiso waxbarasho free ama lacag la-aan scholarship ah taas aawadeedna ardayga ku keento inuu doorto mowduuca ay dawladda ay danaynayso. haddaba waxaa jiro marka la dooranayo mowduuc in la isweydiiyo su-aalo dhowr ah. mowduuc waxaa kaloo muhiima inuu yahay mowduuc ma yahay mid xiiso ku leh haddii ay adiga aad rabto inaad mowduuca ka qorto waa inaad ogaataa mowduucan ma yahay mid xiise leh oo adiga ku xiiso gelinayo oo aad ku raaxaysanayso akhrintiisa. haddii mowduuca uu ku xiiso geliyo aad ku raaxaysanayso akhriskiisa oo wax badan aad jecesha inaad ku ogaato waa ay fiican tahay inaad cilmi baaris aad ka samayso. sidoo kale waxaa muhiim ah inaad isweydiiso mowduuca xiriir ma leeyahay noloshaada. haddii mowduucaad samee wax ka qorayso waa inaad isweydiisaa aniga maxaan qabtaa mustaqbalka maxaan doonayaa inaad qabto wax allaala wix aad wax ka qorayso waa inay xiriir leeyihiin mustaqbalkaaga dambe. haddii aad rabto inaad dhakhtar noqoto wax ka qor dhakhtarnimada. haddii aad inaad ganacsi noqoto wax ka qor ganacsiga. haddii aad inaad xisaabiye noqoto xisaabiye wax ka qor. soo mowduuca aad dooranayso waa inuu xiriir leeyahay mustaqbalka waxa aad doonayso inaad noqoto. hadba waxa aad jeceshahay inaad noqoto ama waxa aad doonayso inaad ka shaqayso mowduuc xiriir wax ka qor. waxaa kaloo muhiim ah inaad mowduuca aqoon aad ku leedahay. haddii uu jiro mowduuca hore usoo baratay oo course aad ka soo qaadatay mowduucaas wax ka qor. weliba mowduuca course aad ka soo qaadato waa inuu ahaado mowduuc aad ka haysato grade fiican A+. doorana mowduuc aad ka haysato C oo D. mowduuc aad si fiican u fahamsan tahay oo aad soo qaadatay casharadiisa weliba markii imtixaanka la gelaa aad maado fiican aad ka keensatay mowduucaas doorakaas ayaa ku anfacaya. ha dooranin topic ama course aad adiga markii aad imtixaanka gelaysa aad C ka soo heshay. sidoo kale dooro mowduuc xilliga la jaan qaadi karo. ha dooran waxyaabo laga tego oo 1900 oo kale. dooro mowduuc waqtigaas taagan. dooro mowduuc la manage garan karo. waxaa muhiim inaad doorto mowduuc waqtiga la socdo oo aad manage garan kartid. waa inuusan noqonin mowduuc wax iska dheer. ogow waxaad haysataa waa waqti kooban. haddii aad tahay degree aad diyaarinayso waxaa laga yaaba 3 bilood haysto. haddii aad master diyaarinayso laga yaaba 6 bilood haysto. haddii aad PhD diyaarinayso waqti badan haystaa. ogow waa inaad doortaa mowduuc aad manage karto oo waqtiga kooban aad haysato aad ku dhamayn karto. haddaba waxaa muhiim in la isweydiiyo su-aalaha soo socdo. kow maxay tahay sababta aan u sameynaa mowduuca maxay ugu kalifaa inaan sameeyo. labo ra'yi ma ka haystaa mowduucan oo wax badan ma ka fahamsanay waxba aadan ka fahamsanayn oo aad ka dhagalaada ha doorane dooro wax aad wax ka fahamsan tahay. dooro mowduuc aad xogtiisa hayso ama aad xogtiisa heli karto. ha doorane mowduuc marka qaarkood waxaa mowduuc aad ay u macaan laakiin markii ay timaado in la xogta mowduucaas la xiriirto ama data collection ama questionnaire marka aad inaad soo aruuriso waxaa laga yaabaa dadka xogta aad ka raadinaysa inaad ka helay
tusaale haddii aad tiraahdo waxaan rabaa inaan xogta ka soo aruuriyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wasiirada dowladda waxaa laga yaabaa inay waqti kugu qaato madaxweynaha la kulankiisana 9 bilood kugu qaato ra-iisul wasaaraha 6 bilood kugu qaato wasiirada kale waqti badan kugu qaato haddaba habdooran mawduuc aad xogtiisa helisteeda ee waqti badan kugu qaadanayso waxaa kaloo muhiim ah inaad ogaato ma jiraan inay jiraan future recommendations la sameeyey macnaha in oo cilmi baarisyo hore la sameeyey cilmi baarisyo hore haddii ay sameeyaan example qofaa wax ka qoraya Soomaaliya dhaqaalaha wax ka qoraya markaas wuxuu leeyahay markuu dhameeyo waxaan codsan lahaa in wax laga qoro qaybta canshuuraadka ama qaybta musuqmaasuqa la xiriirto ama qaybta hilibka soo marka waxaa muhiim inaad ogaato oo aad isweydiiso ma jiraan cilmi baarisyo ay recommend gareeyeen ama recommendation ay sameeyeen cilmi baarisyo researchers ugu horreeyay waxaan wax ka qoran waxaa kaloo muhiim inaad isweydiiso ma jiraan gap cilmi baaris kasta waxay u baahan tahay in ay daboosho gap macnaheedu yahay boos badan ma jiraan wax laysku waafaqi waayo haddii cilmi baaris tekis yiraahdaan cilmi baaro waa inuu yiraahdo sidaas dhexdooda boos ma ka banaan yahay meel banaan ma jirta oo aniga ii banaan oo aan cilmi baaris ka sameeyo haddii aysan gaab jirin fadlan cilmi baaris ma jirto cilmi baaris waxaa lagu sameeyaa meel ay dulaal ka banaaya waa meel banaan inuu jiro marka waxaa muhiim inaad ogaato haddii ay jiraan doodo isdiidaya ama cilmi baaris iska soo horjeedo meel banaan oo aan wax laga sameyn ay jiraan fadlan go ahead cilmi baaristaas mawduucaas sameey waxaa kaloo muhiim ah inaad ogaato mawduucaan aad wax ka qorayso ma national mase waa international oo macnaheedu yahay ma local ayaa mawduucu rabaa waxaa rabaa mawduuc quseeyo muqdisho oo keliya waxaa rabaa mawduuc quseeyo Soomaaliya oo keliya mise mawduucaan doonaa waxaa rabaa in noqdo mawduuc aad u ballaaran oo global ah adduunka dhan quseeyo marka waxaa sax ah inaad doorto mawduuc kooban dooro muqdisho oo keliya dooro marka qaarkood xaafadda degmada aad sii degantahay waxaa haysta waa 3 bilood haddii aad tahay degree haddii aad master haysto idin soo waqti kooban haysta marka waa laakiin inaad ogtahay waxaa wax ku qorayso oo wax local ah mise wax international ugu dambeyn qodobka ugu dambeeya mawduuca waa inuu up to date wixii ugu dambeeyay ee magaalada ka socdo waxaha ku qoran faraaciinta hadaa qorto cidna ma akhrisanayso waxaha ku qoran waxyaabo laga tagay oo aan 1900 ah fiiri Facebook fiiri idaacadaha maxaa maanta socdo maxaa xiisay waxaa laga yaabaa qofkan waxa ku qoraa sida Facebook dadka waqtiga ugu labeeyo dad badan akhrisanaya WhatsApp wax ku qor Fiverr wax ku qor waa mawduuc up to date ah waxaha ku qoran dad laga tagay marka waxaa muhiim ah mawduuc marka la dooranayo qodobada aan soo sheegnay in dib loo eego haddaba waxaan filayaa casharkan uu kaafin karo ardayga doonaya inuu wax ka qoro cilmi baaris uu sameeyo oo ay ku heysay group mawduucan dooranayo muxuu noqon karaa waa anigoo Dr. Shaafici Sharif Maxamed oo casharkii afraadii soo jeedinayo waxaa halkan ugu mahadcelinaa saaxiibkii arrimaheena oo ii saamaxay in TV-gan uu hawada soo galo videogan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono waa anigoo Dr. Shaafici Sharif Maxamed هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.